Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Dividend Teaching Program, our English Class 8 program. Kusoo dhawow programka waxbaritaan ee dibile casharkeennii buggii English 8 Class 1 Lesson 4 casharkiisa afraad pictures pageka waxaa ku sawiran sawiro. So name the following pictures. Magacaaw sawiradan soo socdo. Marka ima suurageli karta inaan aniga meesha wax ku sawiro, laakiin erayada meesha oo ku qoran ayaa ku akhrinayaa. Haddii aad haysatid buug marka adaa magacaawayo. Car waa baabuur, flower waa ubax, bucket waa dambiil ama basket ama waxa u taqaanid wiilka wax lagu qaato, cup waa koob, dog waa a, girl waa gabar, chair waa miis waa kursi adhaho, table waa miis, boy waa wiil, pencil waa qaran qori, train waa train, tree waa gate, book waa book wax lagu qoro, house waa guri, knife waa midi, bell waa gambleel, glass waa galaaska glass lahaa, lion waa libaax, ball waa banooni. Okay, meesha erayada hadda erayada soo qaatay marka waxa arkay marka uu dhahay name the following pictures. Marka uu dhahay waxa arkaybo sawiradii. Markii sawirka aragtid baabuur arkay, car akos qoray, flower arkay, ubax akos qoray. Okay, numbers numberadana waxay ku qoran yihiin small letter iyo capital letter, xarfi yar iyo xarfi waaweyn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 numberadan waxa loogu talagalay hadda arki doontaa. Okay, exercise 1 count and write. Xisaabi eena qor. 3 cups, saddex oo wiila meesha la dhigay. Marka booskeed waxa lagu baneeyay inaad 3 qortid. Marka danaba ku soo qoray 3 cups waa saddex koob. Ma dhehaysid 3 cup ma dhehaysid. Haddii wax ay jamac noqdaan erayga ama noun-kan waa inuu noqdaa jamac. 3 cup waa koob mut, saddex koob waa macna. Annaga had luqadeen Soomaali waxa la dhahaa saddex koob. Saddex koob ma dhaha. Si fiican u fiirso. 3 cups waa saddex koob. 3 pencils waa saddex qalan qori. 8 eggs waa 8 ukun. 9 apples waa 9 tufaax. 6 marbles waa 6 marble. Marble waa bahalka oo tennis camal u qoy. 7 bells 7 gambaleel. 2 spoons labo maclaqo. 1 dog iyo hal a. And meshan you have to pay attention. Waa in aad macnaha aad attention-kaaga inta aad keentid waa inaad macnaha si fiican ugu fikirtid waa. What do I mean is waxa arkooda waxay tahay 3 cups, more than 1 cup wixii hal koob ka badan noun-ka ay waxay ka dhigaysaa jamac. Macnaha ma dhehaysid 3 cup ma dhehaysid. Waa wrong way. 3 cups waa saddex koob, 3 pencils waa saddex qalin geed, 8 eggs 8 ukun, 9 apples 9 tufaax, 6 marbles 6 marble, 7 bells 7 gambaleel, 2 spoons iyo 2 maclaqo, 1 dog hal a. Ma dhehaysid fiiriya 1 dogs maxaa loo dhigaa ma dhihi karo. Okay, 7 a camal saa ku dhahay 7 dogs 7 a. So that's it. halkan ay noogu joogi doontaa casharkeena. Inta aan ku kulmi doono casharka xigan waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Welcome once again to the teaching program. If you are new to our channel, please subscribe and turn on the notifications. And haddii aad ku cusub tahay channelka Dibile, please subscribe garay and gambaleelkana furo si aad u heshid casharradeen cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullahi